أنا عبسني والله بالله إنها مسكوتة No, 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 no. tus waxaa sheegtaa gobolka ama gobolada Soomaaliya gobolka ugu weyn ee Soomaaliya gobolka ugu weyn ee Soomaaliya waa gobolka Banaadir No, 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 no. gobolka waxa saxad malaale gobolka Soomaaliya ugu weyn la ilaaha Hirshabelle gobolka Soomaaliya ugu weyn No. la ilaaha Hirshabelle يبغى Hirshabelle تولو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته YouTube channelka naga daawanaysan waa Team Medium Production. سبسكرايب like Comment and share. watahay sidaad u jeedaanba waxaa caawa garbahayga fadhiya يان له diaspora iyo waliba Khadar. caawa waxay idin haynaa challenge la yaab ah challenge-gaas oo ah haddii aad aragtaan idinkuna aad ku qanacaysan annaguna aan ku qanacayno shacabweynaha dhammaanteenaba meeshan caawa waxaan ku hayaa 5 su'aalood hadduu ilaahay karaal noqdo calaa qof wuxuu leeyahay hal su'aal hadduu su'aashaas qofkaas ka jawaabi waayo wuxuu isla markaas la kulmayaa ganaax ama sidaad u taqaanaanba istraafadaasna waxay noqonaysaa xabad ukun ama beed sidaad u taqaanaan ayuu qofkaas laqayaa ama madaxa loogu jibinayaa haddana waxaan gudagalaynaa in aan su'aalaheena idin aan sii weydiino haye diaspora maxaa leedahay waxaan leeyahay wixii commentiya aan noo qabtaan iyo wixii su'aalaha xaq hoose nagu soo qora caawa garbahayga fadhisaan waxaad diyaar u tihiin su'aalahan inaad ka qayb qaadataan sax su'aalahan ka qayb qaadano oo ka jawaabno. insha allah bismillaahi raxmaani raxiim haddana waxaan gudagalaynaa su'aalaheeni anigoo ku bilaabayo yaa markaas garabkayga midig fadhiya dhagdhag qadar su'aasha ugu horeysa waxay u dhacaysaa sida tan waa su'aal diini ah waxaad sheegtaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam imise goor ayaa qur-aanka kariimka lagu xusay ama lagu sheegay magaciisa In badan tirada goor ee nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay qur-aanka kariimka dhowr iyo toban mar. su-aashaas ma hubtaa Aasaasan maraya dhowr iyo toban mar. okay Meel lagu sheegay. wax jawaabta uu ka bixiyay ma ahan mid sax ah haatan waxaan u gudbinayaa diaspora hadduu uu ka faa'iideysanayo su-aashaas jawaabteeda su-aasha waxay u dhacaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam imise goor ayaa qur-aanka kariimka lagu xusay ama lagu sheegay magaciisa wallaahi inaan niman su'aasha inaan horta hore u maqal kowdii su'aashaas inuu 3 jeer inay tahay waan jecel waa tahay su-aashan aan weydiiyey ugu horeyn qadar ee u dhaceysay imise goor ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay qur-aanka kariimka qadar kuma uusan jawaabin sida saxda ah sidaas darteeda qadar wuxuu leeyahay isla waqti xaadirka ganaaxi hee loogu talagal oo ahaa inuu Mid u kuna liqo. bismillaahi raxmaani raxiim walaal horta ukunta inaa cuntid ma ku qanacsanta adoo raalli ah Wallahi waa adagta. walaal waa igu adagtahay maaha maxaa leedahay niyo nigan inuu la qoway nus waa soo maa walaal waa inaad laqdaas aadan ugu faraxsanahay idus jibi ya laq Amsada ku laqa. jibi ya laq niyo ukaad ها عادي ayar xansada wax waa isku ayar
tus kaamirada soo aad kaamirada caadi u soo aad ها haddana ila daawado sida ugu raaxaysanayo wallaahi billahi tallahi caaw fitamiin caadi ah igaari karna waa isku qab diya isku qab diya ولا معاه ولا سواركتا والله بالله باش اذا السامرو دي بغبك لقنا باش اذا السامرو دي بغبك لقنا ولا عاو عاد فريش تاعي سريت تجي عاد او سحانيسا صح وقرعسنتا سوبا indhaha fiir xogaa kaamirada fiir bal dadka qancaanay indhaha waa xogaa waa isbedelay ma sha Allah kaasi waa aragteen challenge koowaad tii labaad bismillaahir rahmaanir rahiim bismillah maada ka jawaabeen su'aashan aweydiiyay ay ahayd imise goor ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay quraanka kariimka anigoo ka faa'iideysanayo waqtigan qaaliga ah ama fursadan qaaliga ah ayaa la xoogaa soo dhaweeyay oo dhahay 3 goor laakiin 3 goor ma nabiga calayhi salaatu wasalaam quraanka waxa lagu sheegay 4 goor waa su'aashan waxa iska leh kaabay tan su'aash ku weydiin ma qanacsanta diyaar ma tahay anigu waxaan saamisnay inaga jawaabi waxan okay ayaa leh su'aasha ku weydiinaya waxay tahay waxa sheegtaa magac waa magac hada fahan صح waa magac صح hadii hore loo akhriyo waa isku mid hadii gadaal loo akhriyo waa isku mid waa isku halki isku day inaad su'aashaas jawaabteeda fahanto واسلام ماشي waa isla meeshii gadaal iyo horeba وامسح حرف نوقر هذه brother imsa haysta waxa waaye 10 sakin haysataa hadda waxa ka dhacay 3 sakin 7 sakin ku hartay واسكو ماشي waa isku meesha adoo waqti aad u ilaalinayo waxa ku hartay 5 sakin والله حتى كورلو اخريو وبس أفر. بس كورلو اخريو وبس أفر. بس muubta waa tahay si ka faa'iideysi waxaan ugu dhiibaynaa qadar su-aashan toban sakin adoo haysata magaca haddaa gadaal iyo hore soo isku mid u yahay u malaynaa كمان 9 walaal adi waa khadka waa ka baxday مالك ميا muubta Ya. muubta haddaba labadaba ay kama aysan faa'iideysanin su-aasha jawaabteeda haddana wuxuu leeyahay maasha allah walaalkayga ayaa la diyaasbaro xaqiisii bismillaahi araxmaani raxiim ka wataa saase u birbirqaysaa ma aragtaa يلا لقيا waayo maya waa ku seexane ma laqaya bismillah qaisiye laqabo horta intaadan laqin ma ku qanacsantaa inaad ukunta caaba ka daysid istaaga انا اركم كلاسي ما kuma qanacsani والله halkan maxaa usoo fadhiisata markaa ان هون لقى waayo dee ha ila daawada marka kaaba xoogaa iyo kaamirada igu soo dhawow ayaa la adin nafaqa u baahan tahay ما نفقد حقد waxaa ka leedahay ninka inuu nafaqa u baahan yahay ها نفقه سايو u baahan tahay ilaa wax aanu arkay saas wax teeda kale iska daadi waxaan cad faraha kala bax faraha kala abu laq الله ولا بدو كنا مين لقى كريا لا اله الا الله sankis qabo bismillaahi raxmaani raxiim nin raga iskale No, 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 no. No, 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 no.
فريش وانت صح عادي بان صح دتك tus عادي ما tahay war caadi baan ma yaray maxaad dareemaysaa okay waxa ugu gudgalaynaa su'aashii saddexaad ee barnaamijka waxaan haddan iskale su'aashaas qadar su'aashan dhagaha u fur waa su'aal taariikh ah waxay u dhacaysaa sida tan Soomaaliya marka laga soo tago luqadda Soomaaliga waxaa jiro luqado kale ee ku hadlaan Soomaalida hadda luqadahaas maxay noqon karaan sida ingiriiska oo kale carabiga oo kale wadanka laga hadlo luqaday bartaan markaan ka hadlayo waa Soomaaliya su'aashan caadi ugu jawaabay maanta Soomaaliya ha marka la joogo gudaheeda ha luqaday ku hadlaan ha ingiriis iyo carabi afka luqad Soomaaliga ninka ku badan bas chance soo qaatay tahay qadar su'aashi aan weydiiyay ee u dhacisay Soomaali luqadaha ay ku hadashay marka laga soo tago luqadda Soomaaliga imisooyaan su'aashu sida uu kaga jawaabay ma aha mid sax ah laakiin qaar kamid ah uu saxay inta ka hartay waxaan ugu fadhinaa diaspora su'aashan si fiican ugu jawaabay carabiga horta kow ingiriisidaas labo iyo luqadda talyaaniga saddex diaspora laba dhibcood waxaad ku guuleysatay laba dhibcood maxaa leedahay tareenkaaga waxaan leeyahay maanta shucuurteedu aad bay u kacsan tahay si fiican talyaanigu buu ka reebay dee talyaanigu soo wadankii guumaystay Soomaa inaad maxaad xagaad uga tagtay ma dhalintan mana dhashay ma ninka ana dhashtay markaa dhibka wadanka ka sakanta taariikhda kowde barowsi taariikhda baratay kowde maadaama su'aashii ka jawaabay inuu labadaba liqa maya khitaama waa inuu mid kamid ah madax ugu jibisaa de ana ka jibinaya war miyu waalay mid tushart kaamirada la ilaaha adaa soo barweeyay markaad yarayne bas وشخص يمشي موجود قريه ساعات انا عبسني والله بالله انها مسكوت no, 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 no. تص هذا وقال سكايز no way انت سافر وين تجيب سوما ولا سوق دي وين جارس حبدا سهرتي ده وين بعد سمع ها سؤال هذا waxa iska leh walaal si waaragta macnaha xabada ukun madax kaaga taala xabada beerka aad ugu faraxsantaa soo baa maluu qasbay okay سؤال مرة ما لدى مكسو مرتاح في su'aashan hadda waxa iska leh maxay ku celi diaspora iska سؤال okay diaspora waa su'aashii ugu dambeysay waxa sheegtaa waa su'aal taariikhi ah هاي صح isla taariikhda ku gudu jirnaa انا تاريخي واحد ميل بس waxaa sheegtaa gobolka ama gobolada Soomaaliya gobolka ugu weyn ee Soomaaliya gobolka ugu weyn ee Soomaaliya waa gobolka Banaadir No, 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 no. gobolka waxa saxad malaale gobolka Soomaaliya ugu weyn لا اله Hirshabelle gobolka Soomaaliya ugu weyn Hirshabelle ibana تولو وقال البلد من قبل كوكوين ما okay انا ما كنا قريه ma ku cishna jaanis marti ha chan okay daawadayaal saa u jeedaa waa labada ciyaartoy waa doodeen sidaas darteeda waa su'aash waa in mar labaad loo celiyaa sidaas darteeda waxaan ku bilaabayaa qadar
maadaama marka ugu horeysay ayaa lagu horeeyay ayaan ku bilow ku horreemay adigu inaad ku wada okay laba fara ay qabana labada dubta qabsada su'aasha ku horeeyay diidan aniga hay labadaas mid qabsada la gobolka Soomaaliya ugu weyn maxamed baran waay mid qabsada labada far su'aasha waxa ku horeeyay ayaa le Soomaaliya gobolka ugu weyn jamatiin baad ugu soo celisay ها سؤال شكو عليا تسمع والله soo shufta misma eeg waxa weeye new en سؤال كلا حتى دون وا لكن حبت بيلا حتى مش عارف كرنو waxa weeye mataqaanaa halkii soo qabaha daraawi hees ku qaday انا ما يمديني مرك سي كوغو شيغا حدراوي دي حدراوي برادا waxa weeye balad weey No, no, no. مر لبادو كري برادا okay بك فايديسني ha su'aasha gobolka ugu weyn Soomaaliya gobol Soomaha انا قبلان كداي ها gobolka ugu weyn waxa u maleynayaa inuu yahay ilaahoyaanan marka قبل مرك بحاول marka gobol miyaa mise tuulo waa برك يا برك ana gartay waa ku dhaftay waa ku dhaftay su'aasha maya ya waa qalad wili waa qaldanta maadaama ay tartamayaasha ay ka jawaab waayeen su'aashan waxa normal ama sharciga su'aalaha u yaala ah hadii su'aalaha kamid ay garan waayeen waxa markaa su'aasha la bedelo oo su'aal kale lagu bedelo hatta marka waan bedelayna su'aal kale aan ku bedelayna hadii ilaahay kale noqdo su'aasha kale aan ku bedelayna waxay tahay si ugu dambeysay waa fahmayseen marka waxa imaanaysa su'aal dhexdhexaad ah oo labadiina ahba okay anigu haya hal su'aal baan garto challenge baan istaa inaad su'aal diini ayaan lagu kalsaa waxa sheegtay mayo waa su'aal taariikhi waxa sheegtaa loo baahan yahay caasimada saddexaad ee Soomaaliya caasimada saxaab Soomaaliya ana waxaan haya takood muqdisho masa ko talabad balad wala masa waraadina beledin waxa laga siinayo saddexaad baa sheegay Sheeg. ana wado saddexaad waxa weeye waa waa afgooye يربي كوعلي تقوات معاي تقول طلبات استحالي تقوات معاي افقوي طلبات معاي مقدشة دي تزيد عنا صومالي وراو خضر هاي سؤال هذا هذا كوزا وريقت محاويان وحشكت عاصمة سدحات Soomaaliya caasimad saddexaad Soomaaliya caasimad saddexaad Soomaaliya waxa u maleynayaa inay tahay mada gadamanaa magagada ma naha قريولي هذه meelaha meelaha iska dhaa banaadir banaadir بنادر قبل ويا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال سويدي كدنتay sax maadaama ay labada su'aal ay garan waayeen su'aal kamid ah waxa u gudbinaynaa daawadayaasha ku xiran IT media waxa nagu soo reebi kartaan commentiga waxa idinkaga baahanaa inaad soo sheegtaan caasimada saddexaad ee dalka Soomaaliya caasimada saddexaad ee Soomaaliya waxaan ka sugaynaa waa daawadayaasha IT media waxa nagu soo reebi kartaan commentiyada hadda waxaan galaynaa su'aalaheena caadiga ah ee sida ay u arkaan barnaamijkan caawa halkan ka dhacay labada tartama ayaa la diaspora iyo qadar cabdikariin yaraba waxaan su'aasha ku bilaabayaa gacanteeda midig maadaama xabadan been ama xabadan ukun hartay cid nasiib u yeelabaysa inay qaado laakiin waxaa loo dhex dhigaa hee daawadayaasha IT media qofkii soo sheegi waayay maxaa u haray xabadaas been inuu hee مدح لك ay iska soo giijiye marka qadray ku soo dhawo barnaamijka YouTube-ka IT media maxaa leedahay macnaha su'aalaha caawa wallahi waan ku dhawahay kaloo ay jeedaan macnaha korkay caawa waxba ka daadanaya xogaa adina waa urusa xogaa shiir iyo buuqa ka soo kacay waa anigu fahmi lahay barnaamijkaas maxaa waay ukun iyo doorma isku bedeshiraa maxaa barnaamijka ay yaa u jeedaan inaha IT media فيديو هو نيسو بدين دونا هدي إلهي نفط نودايو وبال رمضان خير كذا إلهي نسيو دي واحد الله إنه هنجي لاوينا لايك كومنت تيجا شيرتا انت بقى haddii aad su'aalo inoo haysaan waxaad nagu soo reebi kartaan xagga commentiga xagga hoosena xitaa commentiga waxaad ku soo qori kartaan miskiinka qadaryare waxa ku dhacay waa aragtaan faham qofku damqanayo hay xagga hoose ku soo qoreen oo soo sheeg haddana waxaa idinkaga tageynaa سيدا sidaa iyo
nabadgelyo